xukuumadda Somaliland ayaa isku dayday in ay afduubto isla markaasina garbaduub xidho hoggaanka idaacadda radio halgan oo ah wariye aadan cabdi ciidle sida aan ku helno ilaa xogaala saxaafadda ku heshay taliyaha ciidanka booliska ee qaybta gobolka Gabiley ayaa waxaa lagala hadlay magaalada Hargeysa waxaana la hadlay taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Saqadi Dabagale isaga oo sheegay in la soo xidho ninka la yiraahdo wariyaha aadan cabdi ciidle maxamed Saqadi Dabagale oo moodaya inaan ahayn nin reer Gabiley ah oo halkaasi degan waxa uu taliyuhu sheegay in uu soo waayay isla markaasina ninkaasi aanu joogin gobolka taliyaha ciidanka booliska Somaliland waxaanu sheegaynaa in idaacaddani ay joogto dalka isla markaasina 10 sanadoodba aanay tagin magaalada Gabiley haddii aan qabiil ahaan la iga daydayn waxaan ahay muwaadin ku nool magaalada Hargeysa waliba kula degan xaafadda New Hargeysa waxa igu filan warqad kaliya oo la soo qoro la yiraahdo no kale waxa igu filan hal call oo telefoon la igala hadlo la yiraahdo no kale laakiin ma aha in la isku waraabeeyo saadaradeed waxa aan leenahay xukuumadda Somaliland xarigu xal maaha hadduu yimaadna diyaar baan u nahay laakiin dalka nooga tag baan u aqaan anigu kolka hore waan iska xidhnaa 10 sanadood baan halkan ku xidhnaa wuxuu sheegayaa si ay dhiyar iyo jeelka weyn Hargeysa la isku xidhaa isku soo baxayaan dadku 10 sanadood u xidhnaadii la tasmo laakiin aniga igu gudhaana wax la eegtay ka weyn inqilaabna xal maaha taliyaha ciidanka booliska Somaliland Dabagale waxaan leeyahay war sidii taliyay ka horreeyay ee Cabdilaahi Fadal Iimaan saxaafaddu saaxiib la haddii kale guriga dheer ee qaybtaad ka timid militariga gabgabta saado ay soo kolba meel ka duldhac kolka tamana adigoo dhan walba ka marxabad iska tagi marka waxaan ku leeyahay laguma dirin la dagaalanka muwaadiniinta Somaliland laguma dirin saxaafadda Somaliland la dagaalankeeda waxa lagu diray amniga muwaadiniinta Somaliland aniga inaan dilaalsan lagu diray malaha shaqadan lagu sheegin labada aniga ayaa kaaga xaq leh dalka inaad ilaaliso sharaftayda iyo karaamadayda ayaa taliyaha booliska Somaliland ku tahay marka inaanu islaalino weeyaan inaanu isdaydayno maaha saadaradeed ma jiro dambi aan anigu dalka ka galay ma jiro aniga ku dulmanoo bila amal ku ah oo ku dhex xidhan oo 10 sanadood 1 kilomitir saa u dhex meeraysanay haddaad iga kaxaynayso waan kaaga taganaade waan iska tagi maxay tahay meeshan war meelna qaabilayo oo madaxweyne joogo oo muxuu ahaa la soo dhaweynayo oo bil aad ku jiraysa saxaafadda hotelada la galaya joogo agtiina maxaa sheegaysaa halkan Hargeysa haddii la yidhi dadka xagga u kaxeeya waa iska taganaa waad iska taganaa wax kale kuma hayna meesha hanala joogin baan u aragnaa saadaradeed waxa leeyahay taliyaha ciidanka booliska Somaliland war bal cagta u dhig aday dan ku tahay sharaftaada dan u tahay haw socon sidii kuwii dhigmiiratada shalay meesha ka tagay Morgan iyo kuwii la midka ahaa kabtan xidha iyo sumadaaduna yaana xarig noqon xal kale kama kule anu waxaan joogaa Hargeysa waxaan joogaa laakiin maanta magaalada Burco habeen hore waxaan joogaa magaalada Boorama habeen saddexaad waxaan joogaa Gabiley maanta waxaan joogaa muxuu ahaa Burco habeen daba waxaan imanayaa Hargeysa waxaan ahay idaacadda wareegta laakiin waan Jibriil Abakore Gabiley buu joogaa taliyaha qaybta booliska Gabiley oo Aadan Cabdi Ciidle Gabiley ka soo xid waxaas waa sheeka bareley baa leeyahay gurigaygu wuxuu ku yaal New Hargeysa wadada warcadde kor looga baxay agteedan kala noo kaale baa igu filan taliye marka waxaan leeyahay war ka daayaan leena wallaahi waan ka diganaa xabad ku hadhay magaalada Hargeysa meel la tagin jigjiga u doonan baasaboor in Djibouti meel u tagin aan meel la tagin baan haddaad leeyahay nooga taga waan iska taganaa taliye haddaad deeqa saadiya Muuse bixi wallaahi waan ka taganaa maxay tahay tan muwaadiniinta haddii dalka la nacsiinayo waa iska taganaa waa hore la noo sheegay inuu gacanteeda eersan doono laakiin ma naan moodayn inuu eersan doono farmaajo waxaan isla dalka gudihiisa idinku ooyee waan uga tagay wax macno leedahay ma jiro dambi qarankana ka galay ma jiro saxaafadahan wixii jira waan sheeganaa maxaad waxa uu shiradu sheegaysaa hadday tahay wallaahi waan sheeganaa xarig baan ku qabsanaa ma aha tii hore baan ugu gasban saadaradeed waxaan leeyahay taliyaha ciidanka booliska Somaliland waar adeer ka daa gabgabtan iyo qaad la gubay iyo dad la eriyada iyo cid gaar loo eriyada ka daa tii hore ku duntee qaran baa ku dumay shalay
waxaan doonayaa qaran dhaama kii dume ku ka dara ma rabaanu marka haddii aan noloshaada khatar ku ahay ii kaale haddii kaloon meeshan wada leenahay aynu isku nimaadno wax kaloo jira wallaahi nolo jiro cabdillaahi fadal iimaan taliya ciidanka booliska somaliland saaxiib baan lahayn waloon la shaqeeyana inaad 6 bilood ku dawaqdo aad saxaafadoo dhan ku eriyatood ku xidho adiga ceeb ku ta laakiin una xadhiga iyo cid uga tagay mee lambar baan leeyahay soo qarac meeshan joogay gala soo hadal ii kaalay dheh ixid diyaar baan ahay laakiin waa kaaga tagaynaa marka dambe haddii la hayra